بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما أنت واحد دون أينا لو قضب هل كان كجعله مركور إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرية إنه رحمات خير قضاء ومدين نوشبه ضد يحول اللي تاني إلهي سبحانه وتعالى وحن كعصرنا كبرينا وقعمها كوهوس رجالنا إن رحمات خير قضاء نوشبتي. waxaan uga gudbayaa xisbiga wadada oo ah xisbi mucaarad oo doonaya in uu siyaasadda dalka ku tartamo oo xisbi xaalkiga la tartamo ayaa waxaan u arkaa in uu jidkii ka leexday jidkii habboonaa ee loo tartami jiray ee gobonimada ku jirtay ee sharciga maalgaranaysa iyo xeerarka loo dhigay inuu ku tartamo ayaa laga filayay waxay la soo baxeen caadooyin siyaasadda dalka ku cusub oo مثلا tusaale haddaan soo qaato mashaariicdii horumarineed ee xukuumaddu ku tallaabsatay halkay iska taageen iyo qeeladii ay ka qayliyeen iyo af Soomaaliga ay adeegsanayeen shacabku wada ogaa muwaadinka isurtaaga mashruuc dalka dan oo ay dalka oo horumarinana taade macnaheedu waxa weeyaan wuxuu la aqli yahay ninka xamarka qaylinaya waxa kale oo aad arkaysay hogaalkii inay lahaayeen hogaal baan loo diiday waa xaq daro inay shirka dambeysay maalintii ku xigtayna shir qabsadeen oo hogaal ku qabsadeen ku yaala Hargeysa taas waxay ku tusaysaa in ay aan hogaal loo diidin laakiin loo diiday waqtiga isku soo hagaagay ee xamar baarlamaankeeda mooshinka loo gudbinayay iyo maalinta ay rasuul ku qarsanayeen oo isku mar ku soo hagaagay hortaarika diidana taas oo shacabku wuxuu u arkayay xoojin la xoojinayo xamar aragtida ay ka qabto Somaliland waxa kale la soo baxeen إنما اللي يرى أو يوروب تادجن وندرك واحد كسر بقى عنوانه هنينو حللو جيبين أيام مركي أركان نن وحكوا رأيا مواطن سياسة السعودية أو وطني وحكوا رأيا أيام واحد يلاهن إذنكوا شخصين وجوابه صاعية أكتر صاعية وعايش شخصي تكالية أن ويب سايت إسكي كسوقرا ay soo dhigaan ayaan dadka nimanka website-iskuna waxaan filayaa inayna eeginba maqaalada dadweynuhu ay u soo qorayeen ama xubno mas'uuliyiin ka xisbiyada mucaaradka ay soo qorayeen ma eegaan waayo saxaafadda waa ka xaaraan in ay shakhsi lacaayayo inay fidiyaan oo hay'adahooda institutionka ay ka mas'uulka yihiin inay ku fidiyaan waa ka xaraan weeyaan saxaafaddu waa in arrimaha noocaas ay u fiirsataa waayo goordhow haddii dhibaato ka timaado oo la qabto oo la ashkatiyo oo sharciga la soo taago waxay ku doodayaan saxaafaddii meel baa lagaga dhacay sharci darra lagu xidhay daweynu ognahay anigoo aan u soo haysta inaan ka mid ahay muwaadiniinta aad maaragtay ugu dooda saxaafaddu inay xor ahaato oo la ilaaliyo oo xukuumaddu aanay ku degdegin xadhigooda iyo askatadooda toona haddii in dembi magaranaysa loo aanaynayana loo maro sharciyadda oo waxaan waarant ahayn nin suxufiya inuu ku qabto aanan ogolayn oonan taageerahayn ayaa waxaan iyagana faraya xuduud ha lahaatay xuduud ha lahaatay saxaafaddu hubiya taana halkaasaan ku dhaafiya waxaan u soo daadegaya waxay arkayseen baananka oo laga hadlayay sahaminta shidaalka waynu ognahay dowladaha hore u maray ee khaliijkeenu jaarka nahay ee isku mantaqada ku noolahay waxa kaliya ku horumareen waxa weeyaan shidaalka xusbiyada mucaaradka waliba wadani waxay xoog saartay
inay deegaanada tagto cid u dirto odayaasha kiciso ay ku tiraaho ka hor taga waxaan fariin halkan uga dariyaa inay ka waantoobaan xisbiga wadani xisbul qaranka wadani inay ka waantoobaan mashaariicda dalka horumarintiisa ku saabsan ka hortagiisa inay ka waantoobaan arrimaha noocaasi waxay keeni karaan isku dhac bay keeni karaan nabadgelyo darre ay abuuri kartaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu